haddii aan eegno madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf garabka Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in uu ka badbaaday weerarkaasi lagu qaaday hotel ku yaala dalka Kenya. Xaaf oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa ka hadlaya bal goobtaasi qaabka uu ugu sugnaa iyo sidoo kale waxa markaasi indhihiisa ay qabanayeen. هذا لأنه هوتيل كما تشرين حافظ أو إليه والله يا صومالي سابين شفان أيام كسرلي حافظ كوت إنسانه تاجن با هوتيل كقرف وكبعي كبعض الحبلات صور بعي بس كذا يا عي أنا بس كذا صور واحد بلا ساعد ما يمان أنا جاي بس كذا صور منه يعني واحد يقول على نارك وواحد يدشر على نارك يا سلام يا ما صنت هاي سيدا هذا وبحنتي أقول بيسكون هذا إنه أفر قف يا أبوها وكشي هوتيل كجوريهيسا waxaa kasoo horreysay kale in laba qom lagu tuuray hilibka hotelka. Hotelkuna waa hotel E2 oo ku agyaala agagaarka safaaradda Australia.